wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuso oo aan wax ka weydiinay idaacadda VOA in gabi ahaanba idaacadda VOA ay jabisay heshiiskii ay la galeen xukuumadda Soomaaliland waxaanu wasiirku taadalil uga dhigtay in baahimo kala duwan oo heshiiskaasi ku jirin ay hawada soo gashay idaacaddaasi idaacadaha waaweyn ee dunida jamhuuriyadda Soomaaliland ama wasaaradda warfaafintu laba idaacadood oo waaweyn oo afka Soomaaliga soo daaya ay heshiisiyo kula jirtaa idaacadda BBC-da iyo idaacadda VOA-da idaacadda VOA-da waa markii labaad oo aynu isqabanno idaacadda BBC-da ma dhacdo inaynu inta badan isqabanno sababtuna waxa weeye annagu waxaanu aad u ixtiraamnaa heshiiska qoraalka ah ee ay labada dhinac wada galaan idaacadda VOA-da waxaanu ku jirnaa heshiis ah inay laba xilli hawada soo galaan oo ay labada xillina barnaamijyada iyagu ay leeyihiin ay baxaan annaguna wixii adeeg aanu halkan gacanta ugu hayno iyo ogolaanshaha in ay ka hawlgeli karaan dalkayagaba aynu u fududayno way bedeleen heshiiskii bay ka baxeen saacada aan kuwii ahayn bay damceen inay ku daraan oo subax leh oo duhur leh annagu idaacadahaasi saacadaha dheeraadka waxaanu leenahay heshiiska way ka baxsan tahay ixtiraamna maaha inaad dawladdan iyo intaad heshiis la gasho aad iska wadato uun taada mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuso wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland ayaa mar kale ku celiyay inay ixtiraamayaan heshiiskii hore ee xukuumadda Soomaaliland ay la gashay idaacadda VOA waxaanu soo dhaweeyay heshiis kale oo xukuumadda Soomaaliland ay mar kale la gasho idaacaddaasi mar kalena waxaanu leenahay annagu weli heshiiskii baanu ixtiraamaynaa labadii xilli ee aynu heshiiska ku ahayna diyaar baanu nahay wixii intaa ka badanna in laga wada hadlo diyaar baanu nahay oo wixii macquula kollaybase saacadaha idaacadda raadiyo Hargeysa macquul ma aha inaanu idaacad kala siino